الله الرحمن الرحيم أنا أخياري كسر دوادا شبكتنا صادق تيورياليست كارهان كورس كيني أن كبرنيني لغة جافا عشر كينا مانتي وحاربنا إنا كوكوفر كرينو what is a programming language محالة دها programming language ما دام وحا أن برنينو ويهي جافا أي تهي programming language وحاربنا إنا فهنا محاي وحالة دها programming language general ahaan sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno generations of programming languages heerarka kala duwan oo soo maray programming language-ku sidoo kale converting to machine language oo ah statement aad markasta maqli doontid inta aad ku guda jirtid filliga programming oo ah waxa aad qortay in loo bedelo maxay machine language waxa la dhahaa waa luqadda uu ku hadlo actually computer-ka marka aan ku bilowno maxaa la dhahaa programming language waxaa la dhahaa is a vocabulary and set of grammatical rules waa vocabulary ama erayo iyo set of grammatical rules iyo xeerar grammar oo isku tagay tusaale ahaan oo kale Englishka wuxuu ka kooban yahay maxay vocabulary iyo grammatical rules kuwaasoo yacni loo isticmaalo in bini aadanka lagu hadlo Englishka Arabiga Faransiiska waxa soo dhan waa maxay waxa la dhahaa waa human languages waa luqado ay bini aadanku ku hadlaan laakiin the main difference oo u dhaxeeya programming language iyo human language waxa la dhahaa human language maadaama loo isticmaalo bini aadanka programming language waxa loo isticmaalaa in lagu amarsiyo ama lagu hadlo maxay computer-ka waxa ogaataa vocabulary-ga iyo grammatical rules-kaas waxa loo isticmaalaa maxay for instructing in lagu amro a computer-ka in lagu amro computer-ka ama any other computing device qalab kasta oo computer ah to perform inuu ku qabto specific tasks shaqooyin gooni ah baahiyada adiga aad qabtid inaad u sheegatid computer-ka adoo isticmaalaya programming language-ka waxa loo isticmaalo waa intaas waa vocabulary waa erayo iyo grammatical rules jira kuwaasoo yacni loo isticmaalo in computer-ka lagu hadlo si uu kugu qabto baahidaada uu kugu xalliyo erayga la dhaho programming language badanaa waxaa loo isticmaalaa maxay high level languages ka jira waxaa kamid ah basic C++, COBOL, Java, Fortran, VB, C# waxyaalahaas oo dhan waxaa la dhahaa high level language haddii aan wax yar ka sheego way noo soo socotaa waa mid kamid ah maxay the latest level of programming language ku soo maray waa xaaladda ugu dambaysa uu joogo programming language wuxuu soo maray maxay xaalado kala duwan waa mid kamid ah xaaladahaas high level languages waxay xiriir dhow la leedahay maxay bini aadanka luqadaha uu ku hadlo marka waxa ogaataa laakiin eraygan oo programming language kaliya looma isticmaali jirin high level language waqti waxaa jirtay loo isticmaali jiray maxay machine language assembly language ayagana waxay ahaayeen heerar oo soo maray programming marka each programming language kasta oo jirta waxay leedahay maxay set of keywords xirmo erayeed keywords waxaa laga wadaa waa luqad waa erayo keywords waxaa la dhahaa waa words waa erayo that it understands waa erayo luqadaas goonida ah ay fahanto for example kale English wuxuu leeyahay keywords erayo uu asaga fahmo waxa kamid ah vocabulary oo kale set oo kale grammatical oo kale what oo kale is oo kale waa erayo uu asagu fahmo sidoo kale luqad kasta oo programming language waxay leedahay maxay special syntax calaamado ayada u gooniya oo loogu talagalay for organizing program instructions in lagu nidaamiyo qaab amareedka uu qoran yahay programkaaga sida if oo kale for loop oo kale waxyaalahaas oo dhan waa arki doonaa aan u imaano marka goolkeena labaad oo ah generations of programming languages heerarka kala duwan oo soo maray maxay programmingka anagoo ka bilaabayna maxay heerka hadda la joogo oo ah high level languages wax yar waan ka taabtay laakiin high level languages waxaa la dhahaa waa luqadaha programming language-ka kuwaasoo xiriir ama kuwaasoo u dhow luqadaha bini aadanka ay ku hadlaan sida English oo kale Arabiga oo kale high level languages-ka
while simple inkastoo ay fudud yihiin markii la barbar dhigo maxay luqadaha bini'aadamka maxaa yeelay high level languages ku runtii bini'aadamku way fahmi karaan laakiin waxa ogaataa high level language are more complex inay ka adag yihiin than the languages inay ka adag yihiin maxay luqadaha the computer actually understands luqadaha computerka uu sida tooska u fahmo kuwaas oo lagu magacaabo machine languages ama binary code luqadahaas way ka adag yihiin markii la barbar dhigo maxay computerka high level languageska way fudud yihiin markii bini'aadamka loo fiiriyo laakiin waxa ogaataa waxay adag yihiin markii la barbar dhigo maxay computerka maxaa yeelay computerku wuxuu ku hadlaa maxay luqad la dhaho machine language ama binary language oo ka kooban yacni numbers high level languages na hore usoo sheegnay waxay xiriir dhow la leedahay maxay human languageska waxay ka kooban tahay maxay names ka kooban tahay instead of numbers names ka kooban tahay computerkana kuma hadla yacni names kuma hadla wuxuu ku hadlaa numbers sida daradeed markay way kala fogtaa for example adoo hadda ku hadla luqad Soomaaliya aadan aqoon English ka waran hadii uu kula soo hadlo qof English ah waxa u baahan tahay Soomaali translator in lagu turjumo laakiin ka waran hadii adoo Soomaali ku hadlo oo Soomaali yaqaan oo kula hadlo qof Soomaali kula ah asna oo Soomaali yaqaan yani waxa u jeedaa meeshaas in communication inuu yahay maxay very fast inuu noqonayo soo kale waxaa jira heer la dhaho machine languages oo ahaa heerarkii u horeeyay oo programming language ku soo mareen machine languages waxa la waa languages the computer actually understand waa luqadaha sida tooska ah computerku u fahmo luqadahan waxa ogaataa markii la rabo in la execute gareeyo ama la fuliyo amaradooda way ka orod badan yihiin luqadahan high level languageska iyo assembly languageska oo noo soo socda maxaa yeelay luqadahan waxay ku qoran yihiin formatka uu computerku fahmayo oo ah numbers ay ku qoran yihiin laakiin waxa ogaataa luqadahan inay ku adag yihiin bini'aadamka machine languageska waxay ka kooban tahay numbers kaliya bini'aadamkana yani for example kale waxa rabtaa computerka inaad dhahdo waxa ay soo bandhigtaa hello world waxaad u baahan tahay computerka inaad ku amarsiisid numbers markii la joogo machine language si uu shaqadaada kugu qabto so bini'aadamkii kuma hadlo numbers wuxuu ku hadlaa names ku hadlaa soo kale waxaa jira heer kale oo la dhaho assembly languages oo ahaa waxa la intermediate level wuxuu u dhaxeeyaa maxay machine language iyo high level language u dhaxeeyaa waa kana waxa la yiri waa laying between wuxuu dhaxeeyaa machine languageska iyo high level languageska waxaana lagu magacaabaa assembly language sidoo kale assembly languageska waxay la mid yihiin ama u dhow yihiin machine languageska laakiin waxa ogaataa they are much easier inay ka fudud yihiin machine languageka in la program gareeyo ama computerka la amro adoo isticmaalaya assembly language way ka fududahay machine language because maxaa yeelay they allow waxay u ogolaadaan programmerka to substitute inuu ku bedesho names for numbers meeshii numberada uu isticmaalayo machine language inuu ku bedesho maxay names laakiin waxa ogaataa luqadan assembly language waxay u eg tahay maxay tan machine language aanu imaano goolkeena saddexaad oo cashirka aan ka lahayn inaan ku qorto kareyno oo ahaa converting to machine language oo ah wax aad qortay source code-kaagii in loo bedelo maxay machine language regardless adoo iska ilaawaya what language you use luqad kasta aad isticmaashay ha ahaato Java C++, you eventually need xaqiiqdii waxa u baahan tahay to convert inaad bedeshid programkaaga inaad u bedeshid maxay into machine language sababtoo ah for example kale waxaa leedahay ganacsi waxaa rabtaa inaad samaysid program ku xisaabiya ama ku control ganacsigaaga so waxaad isticmaashay programming language high level ah waxaad qoratay dhammaan solutionskaagii marka computerka wuxuu u baahan yahay computerka wax aad qortay oo ku qoran high level language ma fahmayo computerka wuxuu fahmaa machine language so waxa u baahan tahay maxay code-kaagii ama instructions-kaagii inaad bedeshid oo u bedeshid maxay machine language so that the computer can understand it marka bedeshid kadib computerku wuu fahmi karaa maxaa yeelay computerku wuxuu ku hadlaa machine language marka there are two ways to do this waxaa jirta laba qaab oo loo sameeyo arrintan qaabka koowaad waa combine the program iyo
interpret program. So this is the area dhan oo kamida maada la dhaho compiler and design. haddana ma rabo inaan ka hadlo insha Allah, laakiin markii aan bilowno course-keena qaybta coding-ka waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahmi doontaan insha Allah. cashirkeenana maanta intaas ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.